biyo yaraantani ka jirta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka mid noqotay dhibaatooyinka dhanka nolosha ee ka jira magaalada. Dadka ku nool magaalada Kismaayo 70% in ka badan ma helaan biyo nadiif ah oo ku filan, waxayna cabaan biyaha kareetooyinka ay ka soo dhaamiyaan ceelasha ku yaala duleedka magaalada Kismaayo. Waxaana sanadba sanadka ka dambeeya sii kordha tirada dadka iyadoo ay taagan tahay baahidii ay bulshada ay u qabeen biyaha. Waxaana xilliyada qaar biyo yareeya ceelasha kareetooyinka ay ka soo dhaamiyaan biyaha ee ku yaala duleedka magaalada. Dadka ayaa waxay awoodaan oo kaliya inay codsadaan helidda biyo nadiif ah oo ku filan. maamulka Jubbaland waxaan ka codsanaynaa marka in oo biyo la'aan aan nahay marka oo biyo aan haysanin wax oo biyo la dhaxdhanba aan jirin. waagi inta la soo day ilaa 10 iyo dhowr sano waay oo meesha la degan biyo la'aan aan ku nahay. biyo la'aba waxaan ka soo raadsanaa marka suuq mugdi meel la dhahay ilaa adiga eelasha oo dameero waxaas aan ka gadnay 7,000 8,000 9,000 laga gato. kunkana aan la haysan Kismaayona hadda tiilis la og booyba marka oo wax oo had maanta oo marka lacag oo marka meesha yaasho oo hadda aan jirin shaqadii dhanba aan la helaynin. dawladda Jubbaland waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaali waxaan ka codsanaynaa inuu marka taakule ay noogu sameeyso biyihii ayna soo gaarsiiso ayaan aad iyo aad ugu baahanahay. eelal waa iskaga jiraan eelalkii marka eelal oo la cabi kariyo waxaas ma dhammaan waay ya lacagtina ma awoodi karna hilba qoryo ama biyo raashinkii wixii dhan inaan marka meesha aan ku isticmaalno waa awoodi weyn. waxaan ka raadsanaa marka meel suuq mugdi la dhahay oo mar lagu diiday marna lagu siinay jirto marka oo lacag ay wali biyo rafaada ka qabno jirgaan 8,000 beesa ma qabno shaqa malle hadda saaqanta untawna kaamkan wal maqan markiis wareegi sanagadi oo shaqa la sawaay marka biilaangna na haysata aruurta si hiraabti oo suuq mugdi landiri eelko dhagax balsan ka dareeb iga baxa guriga jareer yaayo biim idin hayna rafaad eel dhanaankan antaniinka yaala dhanaaw marka una Jubbaland may ku codsadaan in biyaha noo taakuleeto afar inoo istaqaano ganacsataa baa magaaladii ku nool dadweynihii waa rafaadsan yihiin tuulooyinka magaalada geesaha ka dadweynaha way ku rafaadsan yihiin kaamleedana aad bay u rafaadsan tahay dadkan cabanaya oo aragtaan inta tiro leeyihiin kullina biyo la'aan bay ka cabanayaan. waxaan ka codsanayaa maamulka Jubbaland iyo madaxda inay soo gaaraan dadkan masaakiinta ee u keenaan biyo hal booyo biyo sulxi ku filan. maamulka Jubbaland dadku ku dhisan yahay weeyaan dadkan waa dadka mas'uuliyadda ay ka saaran tahay waa dad masaakiina nin walbana uu ka warqabaa marka waxaan leeyahay ayaan la fiirsanin ishii aan laga fiirsanin muslimiinta loo gargaaro. wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in magaalada Kismaayo ay ka jirto biyo yaraan isla markaasina wasaaradda ay wado dadaalo dheeraad ah ay ku doonayso sidii dadku ay ku heli lahaayeen biyo ku filan. soo dhawaada TV-ga qaranka waxa lagu jiraa runtii xilli jiilaal ah oo kulayl ah waxaa jirta xilligan oo kale wadanka guud ahaan ka dhacda wax leeyahay biyo yaraan oo dadku ay dareemaan maadaama xoolihii iyo ay ku badan yihiin dadkii biyaha u baahnaa ay baahida biyuhu badanayso si guud ahaaneed kulaylka waa jira baahiduna meel badan waa ka jiraan wasaaraduna shaqooyin badan bay ka wadaa hawsha iyada si wax looga qaban lahaa. Kismaayo agagaarkeeda degmada Nafmadow degmada Naxaweeye Badhaadhe meesha xeebaha xageeda oo degmada Badhaadhe ah gobolka Gedo dhammaan way socotaa barnaamijka si wax looga qaban lahaa loo xalin lahaa. meelo badan biyo dhaan baa ka socda sida qaybo ka mid ah magaalada gobolka Gedo Kismaayo meelo ka mid ah magaalada gudaheeda IDB-sida iyo barakacayaasha baahiya waxa ka jira xawey biyo dhaan baa ka jira. wasaaraddu isku tashi iyadoo ay wado dawladdu ay wado hooyada ay dawladdu leedahay oo wasaaraddu gacanta ku hayso wasaaraddu leedahay oo shaqeynaya. waxaan ugu baaqayaa dadka bulshada Soomaaliyeed inay arrinta iyada dadka baahan biyaha u baahan wax laga qaban karo laga geysto. hay'adaha aan saaxiibadana wada shaqeynana iyagana waxaan u jeedinaynaa baaq xilli jiilaal baa la galay biyo dhaamin badan baa xawey dadku biyo u baahan yihiin iyagana inay ka geystaan baaqana waan u diraynaa qoraal ahaan waan ugu gudbinay insha Allah taala arrintaana si degdeggelinahan maalmahan u wadnaa xaaladeeda shirar badan baan ka wadnaa meel fiican bayna noo maraya. Khadar Iimaan Dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.